10 sanadood baan Jaaniskaa sugin Jaaniskii markuu maanta yimiday in cid gaar ah koota loogu xiro annagu haddaan nahay gobolada galbeedka Soomaaliland ma ogolin boqolkiiba la taga aad wadaan anagu ma ogolin sida doontaan u dhiga golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida waxaan u soo jeedinaynaa kama codsanayno waxaan u soo jeedinaynaa qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka kala duwan ee magaalada Boorama oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Boorama ayaa waxay markii ugu horeysay ka hadleen xeerka doorashooyinka ururada siyaasadda Soomaaliland kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadiisu ay ka taagneyd guud ahaan dalka waxa wadare shacab waxaan la hadlaynaa baarlamaanka golaha guurtida iyo golaha wakiilada annagoo ah gobolada galbeedka waxaanu taageersanahay codka haldheerida waxaanu taageersanahay si qoto dheer u taageersanahay codka haldheerida annagu siyaasiyan ma rabno saddex xisbiyo ilmaadeera oo platform ayagu matalaan kaligood 10 sanadood baan Jaaniskaa suginay Jaaniskii markuu maanta yimiday in cid gaar ah koota loogu xiro annagu haddaan nahay gobolada galbeedka Soomaaliland ma ogolin madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka isku dhafan waxaanu ka codsanaynaa min fadlakum inaad maanta gobolka Awdal aan laga deydin meel dheer sidii gobolada kale dhalinyartani maanta waxa ay u taagan yihiin ama iskugu soo baxeen in ay helaan xusbi ay iyagu leeyihiin golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida waxaan u soo jeedinaynaa kama codsanayno waxaan u soo jeedinaynaa in ay xeerka haldheeriga ay ansixiyaan si loo helo Soomaaliland la wada leeyahay cali khaliif kaleed Allah u naxariistay waxa uu dhintay isagoo leh Soomaaliland la wada leeyahay ayaynu u baahanahay annaga gobolka Awdal maanta waxa uu leeyahay waxaan u baahanahay Soomaaliland la wada leeyahay haddii ay taasi dhici weydo waxay noqonaysaa halkii Soomaaliya martay in reer Awdalna laga raadin doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh golaha wakiilada golaha guurtida waxaan leenahay waddanka saadiku doontaa kama yeeli kartaan ummadana siday doontaa dad yeelaysan waxaynu joognaa maanta Soomaaliland la wada leeyahay rabnaa Soomaaliland la wada leeyahay waxa lagu helayaa waa in la helo saddex ururo ka soo jeeda gobolada galbeedka oo gobolka Awdal ururuna xisbi leeyahay gobolada kale wada leeyihiin anu maanta halkan joogo siyaasiyiin lama socdo ururka ilaa laakiin marka gobolada galbeedka la joogo waa in la helo xisbi gobolka Awdal leeyahay taasina waxa ku imanaysaa waraaqada maanta ni hor taallay waa inaad ku ansixisaan ururka haldheerin lagu codeeyo boqolkiiba la taga aad wadaan anagu ma ogolin sida doontaan u dhiga haddii la doonayo Soomaaliland la wada leeyahay waa in la helo laguna codeeyaa haldheeri lagu codeeyaa taa markaa ka imaado war shalay haddii nin buur fuulay oo weliba askar ciidamada qaranka laayay tiisi loo yeelay annaga taayada maanta in la yeeli waayay de waxaan u malaynayaa in la doonayo in sidii tii oo kale la sameeyo buuq la sameeyo taasoo dhici maysa nin keliya waddanku joogi maaye aqlabiyadda la raacay 33 sannadood baana lagu soo sameeyay Soomaaliland la wada leeyahay 33 sannadood ayaa la nagu soo sameeyay Soomaaliland waa la wada leeyahay manana arkaynin Soomaaliland la wada leeyahay waxaan arkaynay Soomaaliland saddex ilmaadeer ay hogaaminayso sidaa darteed maanta ayaynu isleenahay waxaad ka baxaysiin Soomaaliland tii ay saddexdan nin ilmaadeerkii hogaaminaysay waxaynu markaa anagu ahan golaha baarlamaanka golaha guurtida iyo madaxweynaha iyo cid kasta oo ay khusayso waxaynu ka codsanaynaa in la noo ansixiyo oo la ansixiyo codka haldheeriga si aynu siyaasaddaas aynu ka dhex maqannahay aan uga soo dhex muuqanno waxaanu taageersannahay in xisbi gobolka Awdal leeyahay aanu helno waxaanu guurtida faraynaa inay u codeeyaan oo ansixiyaan xeerka sheegaya haldheerida kaas oo haddaanu gobolka Awdal nahay aanu ku qanacsannahay waxaanu maanta rabnaa oo fursad u helnay inaan helno xisbi mataqaanaa matala gobolada galbeedka Awdal Selil marka aad waxaan u faraynaa inay nala qaataan dareenka bulshada gobolka Awdal ay qaataan haddii aan maalin walba qof raali gelino de waddanku wuxuu noqonayaa reerdhay hebeldhay kacad qurub xaraf baanu kala go'aynaa gaariyaa yidhi waxaa iman dharaar baa iman dadka Sool iyo Awdal la hagraday aaduna waa imane gobolka Awdal maanta wuxuu marayaa qaranka marka ay xukumayaan saddex nin oo ilmaadeeri
maba ogiba shirka halkaa ka socda waxa ka soo baxaya haddii lay weerarayo haddii lay qadinayo haddii lay jidgoynayo waxaan qaran ku noqon karnaa qaran kala duwan mansab kala duwan xilal kala duwan inuu adeerkay wasiir noqdo waxa ka fiican in shakhsi qof kale oo qarannimada igu matala uu wax noqdo gobolka wada 3 wasiir bay leeyihiin iyagoo ugu yar bay haddana ku qanacsan yihiin dee lama qaadan karo inay ka maqnaadaan ururada siyaasadda dee waxaanba reer baa soo jeediyey maanta lagu dhaqmayo dee hadduu reer jeedin annagu waxaan jeedinaynaa dee annaguna reer baa nee taayada lagu daro waxaanu leenahay waa in urur ay iska leeyihiin gobollada galbeedka awdal iyo salal iyo gabiley inuu soo baxay maanta waa mid meesha yaalla waa haddii somalilan rajo laga qabo arrintaa baarlamaanka markaa waxaan kula talinaynaa waa in codka haldheeriga ah ay ansixiyaan somalilan la wada leeyahay anigu iska dhaaf inanka aan dhalay ayaa qaangaar noqday sida loo lahaa somalilan la wada leeyahay waanan ku qanacsanahay aniga oonan buur qorin aanan qaadan qalqal siyaasadeedna aanan samaynin ayaan baarlamaanka waxaa hortaagan maanta ina noola ansaxgareeyo yani xisbiga maanta ay shacabka dareemka ay la wada kacsan yihiin ina noola ogolaado waxaanan dawladda ugu baaqanaa ama labada gole ee hawshani hor taallo inay noo ansixiyaan codka haldheerida ah waayo somalilan waxay somalilan ku ahaanaysaa marka la helo saami laga simaya ama la wada leeyahay imiga halkan waxaa ka jira 3 nin oo ilmaadeera oo 3 sano muddo ku dhow ku ceeshanaya taasina nama qabato mana yeelano waana ka soo horjeednaa haddaanu nahay dadka beesha galbeedka haddaan nahay dhalinyarta gobolka awdal salal iyo gabiley mowqifkan waan ka midaysannahay in haldheerida sideeda la noogu ansixiyo shalay reer baa la ansixiyey go'aankiisa reer qura iyo go'aankayga la ansixiyey maantana annaguna waxaan leenahay taayada oo haldheerida ha la ansixiyo haddii la doonayo somalilan la wada leeyahay haddii kale dee 3 nin xisbiga reerkii awalba dee lugajiidka iyo dabajiidka ahaa dee albaabku saa buu sii xidhnaan ku hoosta ka xidhiyo ku gurada ka xidha